مسكحدي دونيدو ملاسن موجدهيدا مسكحدي دونيدو ملاسن موجدهيدا كلاميرتي معني سيماركي قرسونا كلاميرتي معني سيماركي قرسونا ومصباحي كاهيسو مانكا عيني مبدقي كميري ومصباحي كاهيسو مانكا عيني أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaan mahad celinayaa dhammaan qof kasta oo ka soo qayb galay xafladda teatal kasta iyo sabab kasta oo mataan uga soo qayb galayba waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin waa waqtiga mataan qaaliga ah ee aad u hurteen sidii mataan looga tashan lahaa ama mataan looga arrinsan lahaa ardayda iyo ubadka mataan Soomaaliyeed waxbarashadooda waxaan leeyahay qof kasta aad iyo aad mataan u mahadsan tahay waqtigii aad mataan aad noo hurtayna waa midaan mataan kaaga mahad celinayno waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan mataan u mahad celiyo bahweynta mataan reer Atlantic iyo cid kasta mataan ka soo qayb gala oo ka soo qayb gashay mataan xafladan waxaan leeyahay mataan aad iyo aad u mahadsantihiin mahadu haydan ka gaarto sidii aad mataan noo soo ajiibteen كوني كوتشر المتايدين كم هذا علينا حفلتنا وأي فرنتهاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهرينتي وحنا هاي أرضيدا معلمين تا والدين تا مرتشرف كدمان وحنا هاي كسود وهذا سكولك هو صد حسر أتلانتيك بريمري سكندري سكول. waxaan aad ugu faraxsanahay galabta inaan ka soo qayb galo xafladan furitaanka oo lagu furayo maxaa la yiraahdaa lagu saadugsiyeedkii maadaama uu bilaabo rabo aadan uga xumaayay maadaama waqtiga uu nagu gaabtay oo xaalad farsamo darteed waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba ku soo dhawaada iskuulka Atlantic aad ayaan ugu faraxsanahay inaan xafladan noocan oo kale wujuuhdan quruxda badan oo maxaa la yiraahdaa ardayda iyo waalidiinta iyo marti sharafka oo maxaa u dabaaldegaya علمي إيو محلي هذا شرفت وليه هذا أنا فرحان هاي حفلة نوع عنه كلنا كسو غيب قالوا مرة بعدين مرسل دعوة عن ليه هاي هذا دم هتنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضا يو والدك معلمين تا مرت شرفك كاميرا معنا نقف كستا ماشي عن كشغينا يسا آدي أمها سنت هاي واحد ربعنا واحد يركز كوبو أنا شغال إني رياضة أسلقي سنو هذا البطن وحال هذا حال ما بيحشو waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob oo yar meesha waxa lagu hadlayaa maanta iskuulka Atlantic barnaamijka uu leeyahay waxa waaye inta aan ka fahmay waxa lagu soo bandhigaa aqoon iyo aqoon la'aan horta koow adduunkan ahaanta joogno waxa samaystay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa samaystay markuu ka hadlayay wuxuu yiri Ilaahay qul hay yastawi alladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun macnaha ma siman yihiin kuwa wax yaqaan iyo kuwa wax aqoon jawaabtu waxay noqotay waa maya mana sinaa doonaan mana sinaa jirin haddana ma sinaa waxaan u mahad celinayaa ardada iyo waalidiinta iyo macallimiinta iskuulka Atlantic anigoo ka wakiil ah maadaama waalidnimo la igu soo kiciyay waalidiinta haba u badnaadaan hooyooyinka oo runtii aan dareemayo inay ilmahan quruxda badan ay ku soo dadaaleen inta aan joogin oo aan wakiilka ka naaba waxaan rabaa inaan 3 kelimo ku soo koobo hadalkayga oo midda koowaad aan la hadlayo waalidiinta in ay waxbarashada ilmahooda ay aad ugu kontroolaan sida iskuulka uu baalka leer xoog u saarayo midda labaad macallimiinta ayaan rabaa inaan kala hadlo qaabka ilmahooda wax u barayaan inaysan noqonin kaliya inay
ay u xarxariiqaan laakiin ay si dhaba u ogaadaan ilmuhu waxyaabo ay ku kala duwan yihiin ilmuhu way kala duwan yihiin markii wax la baraayo mid waa damiin mid waa meel dhexe midna waa haysare in la isku wadana waa la rabaa isla markaasna baruhu cilmi ayuu ka bartaa ardada oo wax baraayo sababta waxa waaye cilmigaasi mar kasta waxbaa u siyaadaya ilmuhu waxay ku kala duwan yihiin midda saddexaad waxaan rabaa ardada inaan u sheego in ay waxbarashadooda xoogga saaraan gabdhuhu waa diyaar aaday u jeedaan waa attentionkooda u muuqda laakiin wiilashu iska cayaarayaan inay attentionkooda muujiyaan oo dadka la hadlaaya ay dhegaystaan berri dambe ayaad sidaan oo kale kuwa awoowaha aad u tihiin aad ula hadli doontiin insha allahu dhammaan ka soo qaybgalayaasha barnaamijka ugu horeeyaan macallimiinta sharafta leh waalidiinta ardayda iskuulka wax ka barata Atlantic iyo marti sharafta kaleba waxaan rabaa inaan ku salaamo salaamta ugu qiimaha badan assalaamu calaykum waraxmatullah intaas kadib waxaa farxad weyn noo ah haddaan nahay badda Atlantic inaan xafladan oo kale qabanno xafladan oo ugu talagalnay furitaanka sanad dugsiyeedka 2019ka 2020ka aan rabno inaan warbixin badan kula wadaagno waalidiinta qiimaha badan ee meesha noo fadhiya iyo ardadeenaba waxaa noo furmay sanad dugsiyeedka 2019ka 2020ka oo nooga furmay labada xarunba ee iskuulka sabtiga oo diilaheed mana soo aadanna waxbarashadu ay noo bilaaban doonto sanadkii tagay sanad muhiim oo noo ahay wax badan aan qabanay aan ku guuleysanay inaan gaarno hadafyo badan ee aan qabsanay sanadka bilowgiisii hore waxaana ka mid ahay in la sii kordhiyo tayada iskuulka iyo nidaamkiisa in la kordhiyo xiriirka waalidiinta aan la leenahay in la kordhiyo dabagalka lagu samaynayo ardayga waxbarashadiisa waxaan go'aansanay ardaydeena inaan dhiirigelino gaar ahaan kuwa kaalimaha gala waxaan qiimeynay 9 arday ee ugu horeeyay fasalada dhibcahoodan fiirinay waxaan go'aansanay ardayga ugu sareeya oo 9kaas ardayga ugu dhibcaha badan oo kaalimaha soo wada galay ardayga ugu dhibcaha badan inaan sanad dugsiyeedkan soo socda inaan ka dhigno free waxaan ku guuleystay sanadkan on jaaniskan ka faa'iideysan doona dileedmo sanad dugsiyeedkan ardayda lagu magacaabo Caasho Maxamed Cabdi oo ku gashay 97.4 average u ahaa Caasho waxaan leeyahay hambaliyo dadaalkaaga sii wad waan rajaynayaa insha Allah dadaalkaaga sii wadi doonto ardayda kale waxaan leeyahay qof kasta ha ku dadaalo inuu sanad ugu yaraan iskuulka lacag ku dhigto qof kastana gacantiisa iyo qalinkiisa ku xirantahay